Haiti Green oo lagu neenaaso saaxiradii madoobeed ee Wall Street waxay ahayd haweeney ganacsato Amerikaan ah iyo maalqabeennad nooleed dabeeqadii qarnigii 19aad ilaa bilowgii qarnigii 20aad waxayna caan ku ahayd baqiiltinimo waxaana buugga diiwaanada rikoorada caalamka loogu diiwaangeliyay inay tahay haweeneydii ugu baqiilsaneed taariikhda bini'aadamka. Haiti Green ayaa ifka kaga tagtay maal dhan $2.3 trilyan oo dollar. waxaa laga yaabaa inaad la fajacday lacagta cadadkaas leh waa $2,300 oo trilyan oo dollar. waa lacag ka badan miisaaniyadda dowladaha adduunka ugu qanisan. waa maxay qisada haweeneyda ugu baqiilsan caalamka? intaanu noo gelin muuqaalkan, haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir kana mid noqo asxaabta ku xiran kanaalkan. Haiti Green waxay sanadkii 1834 ku dhalatay magaalada New Bedford waxayna ka dhalatay qoys qani ah. waalidkeedu da' ayaa soo barbaariyay waxayna ku soo barbaariyeen inay maalka aynan ku tasarrufin ayna dhaqaalaysato. markay 6 sano jirsatay waxay akhrin jirtay jaraa'idka maalinlaha ah gaar ahaan wararka la xiriira dhaqaale iyo warbixinada suuqyada saamiyada. markay 10 sano jirsatana waxay xogay ahaan ula shaqaynaysay awowgeed iyadoo warqadaha u qori jirtay kalena qayb kala jirtay shirarkiisa ganacsiga. sidoo kale markay 13 sano jirsatay waxay ahayd xisaabiyaha ganacsiga qoyskeeda. markay 20 sano jirsatay waalidkeed ayaa u iibiyay sanduuq dhar ah oo qurux badan si ay ugu labisato iskuna qurxido. laakiin way iibisay dharkii waxayna u isticmaashay lacagtii inay ku iibsatay bonds ama dulsaar leh oo bangiga dowladda ay amaahiday. Haiti Green ayaa aad uga duwaneed dumarka kale ee da'deeda ahaa. haweenkii xilligeedii noolaa waxay ahaayeen kuwo jooga guryahooda kana indhaxiran suuqa ganacsiga iyo lacagta. laakiin Haiti Green waa iska diiday arrinka wuxuuna hadafkeeda ahaa inay noqoto maalqabeennad weyn. 1865 waxaa geeriyooday waalidkeed waxayna waalidkeed dhaxal ahaan uga tageen $6 milyan oo dollar. waxayna ahayd gabadha keliya ay ka haystaan carruur oo dhan. Haiti Green waxay maalgashatay shirkad ka shaqaysa iibinta guryaha iyo dhulalka, khaasatan dhulalka la filayo in loo bedeli doono wato tareen. sidoo kale waxay amaah dulsaar la siin jirtay bangiyada la daaladhacaya dhaqaale xumida. sanadkii 1905 waraysi ay siisay New York Times maray ka warramaysay qaabkay ku ganacsato kuna heshay lacagtan faraha badan waxay tiri waxaan iibsadaa badeecada marka qiimaheedu uu hooseeyo. qofna kama iibiyo alaabta aan hayo ilaa qiimaha badeecadu kor u kacayo oo ay dadku u haraadaan badeecada iibsashadeeda. marka waxaan uga iibiyaa qiimo sare. Haiti Green waxay ka shakaysaneed nimanka inay ka cunayaan lacagta iyo hantida ay haysato oo ma aynan guursanin ilaa ay ka soo gaartay 33 sano. waxayna dhashay 2 carruur ah, wiil iyo gabar. guurkeeda ma uuna noqon mid guulaysta maxaa yeelay mar walba waxay ka shakaysaneed ninkeeda iyo doonista hantideeda xad-dhaafka ah. ninkeeda waxa uu ka tegay guriga bilo kala fogaanshaha kadib. ninkeeda waxaa siibay cudur halis ah waxayna ku soo celisay guriga si ay ugu baxnaaniso. ugu dambeyntii 1902 ayuu geeriyooday. maalmo kadib geeridiisii waxay xiratay dhar madow ilaa inta ka dhiman nolosheeda waana tan keentay in lagu naaneyso saaxiradii madoobeed ee Wall Street. waxay kaloo xiran jirtay koofiyad raqiis ah iyo boorso madow. ma aynan lahayn wax gaar ah waxayna ku lugayn jirtay jidadka waaweyn ee Manhattan iyadoo ku wajahan xafiiskeeda ay ka maamushay boqortooyada ganacsiga ay ku yaalla magaalada New York. inkastoo Haiti ay ahayd haweeney hanti badan haysata ayna ahayd haweeneyda ugu hantida badan adduunka kuna noolaan kartay nolosha ay ku nool yihiin dadka hantiilayaasha ah iyadoo waxay ku nooleed nolol hoose waxayna ahayd baqiil daran oo gacan adag. sheekooyinka cajiibka leh ee laga wariyay waxaa ka mid ah inay saacado badan ay raadinaysa maalin istaamba joogta 2 senti waana lacag uu faqiirkuba raadiyeen. sidoo kale carruurteeda ayay ku qasabtay inay xirtaan dharka gacanta labaad hudhay cunaana raashin raqiis ah. arrinta fajacale ayaa ah waxaa shil baabuur galay wiilkeeda dhaawac ayaana ka soo gaaray shilka waxayna geeday isbitaal gaar loo leeyahay. kadib waxaa lagu xujiyey lacag way kala baxday waxayna geysay isbitaal dowladeed oo loogu talagalay in lagu daaweeyo dadka danta yar. markii dhaqaatiirta ay arkeen aqoonsiyadeedii waxay ogaadeen inay tahay maalqabeennad kadibna waxay u sheegeen inay iska bixiso qarashka daaweynta. waxayna sheegtay inay kala baxayso cunugeeda isbitaalka wayna kala baxday. maqii 2 mar buu khasaaraaye wiilka yarka baqiilnimada hooyadii dartiis ma uusan helin daaweyn ku filan. nabarkii ayaa fashfashay waxuuna u baahday qalliin degdeg ah si lugta looga jaro. laakiin iyadu waxay ku adkaysatay inay iyadu guriga ku daaweysanayso intii daawo lacag looga qaadan lahaa. markii ay gabowday waxay noqotay mid seexata iyadoo dhinaceeda yaalaan silsilada ay ku xiran yihiin furayaasha qasnadaheedii iyo bangiga. 3 Julaay 1916 ayay ku geeriyootay magaalada New York iyadoo jirta 81 sano. waxayna carruurteedii ka dhaxleen hanti dhan $100 milyan oo hadda u dhiganta $2.3 trilyan. marka wixii ka dambeeyay carruurteedii waxay ku noolaayeen nolol dhaantatii hore. qisada haweeneydan ayaa aad u soo jiidatay dadyo badan waxayna la yaabanaayeen baqiilnimada sida u daran. magaca saaxirada waxa uu ka yimid
sidii lacagta u sameynayso ayna u fakarayso mar walba sidii lacag badan ku heli lahayd haddana lacagta sirada badan aysan ka faa'iideysanayn sidaas daraadeed dadka waxay ugu yeereen inay tahay saaxirad waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. I'm Hetty Green, the witch of Wall Street, they called me. They were jealous because I was female and I was the richest woman in the world in the 1800s. Why, the